kulan wacan oo wanaagsan ku soo dhowaada daawadayaal warka xogta TV qodobada ku daawad doontaan waxa ugu dooroon shabakad qaabilsaneed dilalka iyo qaraxyada al-shabaab ka geystaan Kismaayo oo la qabtay xabadda lagu dilay Almaas Elman oo la shaaciyay cidda Muqdisho ku haysata shirka golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo diiradda lagu saaray xalay doorashooyinka iyo xiriirka u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya Axmed Madoobe oo markiisii ugu horeysay si kulul uga hadlay ciidamadii dhawaan ka goostay kuna biiray dawladda Sheekh Umar oo si adag uga jawaabay eedeyntii Soomow koonfur galbeed oo cafis u fidisay rag shabaab u badnaa intii aad maqasheen wixii ahaayeen qodobada ugu doorka roon saakay xogta TV haddii aad nagu cusub tahay fadlan daawaday subscribe channelkan si aad u hesho wax kasta oo aan channelkan soo gelino taariikhdu waa 22 November sanadka 2019 intii aad maqasheen oo faahfaahsan ku soo dhowaada daawadayaal shabakad qaabilsaneed dilalka iyo qaraxyada al-shabaab ay ka geystaan magaalada Kismaayo ayaa gacanta lagu soo dhigay ciidamada ammaanka ee maamulka Jubbaland oo saacadihii la soo dhaafay howlgalo ka sameeyay Kismaayo ayaa gacanta ku soo dhigay shabakad isku xirneed oo la sheegay in dilal iyo qaraxyo ka geysan jirtay magaalada Kismaayo war ka soo baxay hay'adda nabad sugidda Jubbaland ayaa lagu sheegay in ciidamada amnigu soo qabteen Maxamed Cabdullaahi Abuukar iyo Cismaan Maxamed Maxamuud oo lagu eedeeyay inay shabaab u qaabilsanaayeen weerarada ka dhaca magaalada Kismaayo al-shabaabna ay soo abaabulaan sidoo kale warkan ayaa lagu sheegay in xilliga la soo qabanayay raggan ay gacmaha kula jireen fal dambiyeed isla markaana mid ka mid ah uu ku hubeysnaa bastoolad midka kalena uu waday qarax lagu dhex diyaariyay tarmuus sida lagu shaaciyay qoraalkan Korneel Khalid Sheekh Cabdullaahi oo ah taliyaha nabad sugidda Jubbaland oo la hadlay warbaahinta ayaa sidoo kale sheegay in ciidamadu ay tageen goobkeed u ahayd raggaasi ka tirsan al-shabaab isla markaana laga soo helay 2 qarax oo nuuca miinada iyo 7 bam gacmeed ugu dambeyn wuxuu taliyuhu sheegay in uu uga mahad celinayo shacabka Kismaayo sida ay ula soo wadaageen xogta raggaasi iyo falalka ay abaabulayeen ee laga hortagay ka shaqeynayna anaga shacabka oo iswadana in aan dhagarqabayaashii muddadii dambe hadda amni darrida u sababay magaalada Kismaayo aan ku soo dhigno gacanta si ay dadku ugu noqdaan noloshoodii iyo amnigoodii oo aad moodo maalmahan dambe in ay cadowgu saameyn badan ku yeesheen bulshada ku nool magaalada Kismaayo maalmihii la soo dhaafay waxaa gudaha magaaladaasi ka dhacayay falal lidi ku ah nabadgeliyada magaalada Kismaayo kuwaas oo u badnaa dilal qorsheysan shirka golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo xalay ay ku yeesheen New York ayaa diiradda lagu saaray doorashooyinka Soomaaliya iyo xiriirka u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya u dhaxeeya muranka badda ah golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa xalay kulan ka yeeshay xaaladda Soomaaliya kaas oo ka dhacay xarunta qaramada midoobay ee magaalada New York sida wararku sheegayaan waxaa fadhigan khudbad ka jeediyay mas'uuliyiin uu ka mid yahay wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobay Soomaaliya James Swan wakiilka gaarka ah ee midowga Afrika Soomaaliya Ambassador Francisca Madera gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka Soomaaliya Xaliime Ismaaciil Ibraahim Xaliime Yarey iyo gudoomiyaha bulshada rayidka ah Cusmaan Macalin wakiilka qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya oo khudbad ka jeedinayay shirka ayaa xusay horumarka Soomaaliya ay ka gaartay deyn cafinta qorshaha cusub ee horumarinta qaranka ciidamada qaranka Soomaaliya oo dhul cusub ka qabsanaya al-shabaab dib u soo celinta xiriirka u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya oo muranka badda uu ka dhaxeeyo higsiga ajendaha 2020 wuxuu u baahnaan doonaa wada ogol siyaasadeed oo qoto dheer ergeyga qaramada midoobay Soomaaliya James Swan ayaa u sheegay golaha ammaanka isagoo hoosta ka xariiqay sida ay muhiim ugu tahay in baarlamaanka Soomaaliya uu meel mariyo sharciga doorashada iyo meel marinta wax ka bedelka sharciga xisbiyada siyaasadda ka hor dhamaadka December si looga fogaado wax kasta oo khatar gelin kara waqtiga loo qabtay doorashada 2020 xabadda dishay Allaha u naxariistay Almaas Elman ayaa la shaaciyay cidda Muqdisho ku haysato xildhibaan Axmed Macalin Fiqi ayaa qoraal kooban soo dhigay bartiisa xiriirka bulshada
waxa uu ku sheegay in xabadii lagu dilay allaha u naxariistee Almaas Elman ay tahay mid dhashiika ah isla markaana ay magaalada ku haystaan oo kaliya ciidamada Amisom iyo ciidanka dowladda. Almaas Elman Cali Axmed ayaa gelinkii dambe maalintii Arbacada lagu dhex dilay xarunta xaalane ee magaalada Muqdisho oo lagu tiriyo goobaha ammaankooda sida aadka ah loo ilaaliyo, waxaana ilaa hadda la cadeyn cid dishay Almaas walow la sheegay inay baaritaano socdaan. xabad aan sharqanteeda agagaarka laga maqal ayaa dishay marxuumad Almaas Elman, laakiin waxaa la wada ogyahay qoriga dhashiika ah ee xabadiisa ay dishay gabadha waxaa Muqdisho ku haysta oo kaliya ciidamada dowladda ka amar qaata iyo Amisom, ayuu qoraalkiisa ku yiri xildhibaan Axmed Macalin Fiqi kana mid ah madasha xisbiyada qaran ee mucaaradka ah. xildhibaanka ayaa sidoo kale qormadiisa ku adkeeyay madaxda qaranka si aan leexleexad lahayn looga doonayo inay u cadeyso ciddii geysatay dilka marxuumad Almaas, isagoo ka dalbaday in shacabka loo soo bandhigo natiijo ay ku qanci karaan kadib baaritaanka lagu sameeyay arrintaas. hadalkaasi waxaa yiri Axmed Macalin Fiqi oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya. madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa markii ugu horeysay ka hadlay ciidamadii dhawaan ka goostay maamulkiisa ee ku biiray dhanka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa markii ugu horeysay ka hadlay xaaladda gobolka Gado oo kacsan maalmihii aan soo dhaafnay, halkaasoo inta badan ay ciidamadiisii ku biireen dowladda Soomaaliya. Axmed Madoobe oo ka hadlay shirka golaha wasiirada Jubbaland ayaa sheegay in xaaladda ku soo cusboonaatay Gado aan intaas ka badan laga sii aamusnaan karin, go'aan rasmi ahna Jubbaland ka qaadanayso waxaa halkaas ka socda. Axmed Madoobe ayaa sheegay inuu magacaabi doono guddi isfaham ah kuwaas ka soo warbixi doona xaaladda gobolka Gado. halka Axmed Madoobe ayaa imaanaya iyadoo madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sii Aadan dhowr maalmood uu ku xiran yahay Ceelwaaq uuna geli waayay magaalooyinka Baladaxa oo Luuq Doolow dhawaan ay la wareegeen ciidamo taabacsan dowladda. horeyna uu ahaa ciidanka daraawiishta Jubbaland, balse waxay sheegeen saraakiisha ciidanka hogaaminaysa inay ka soo goosteen Jubbaland kuna biireen dowladda. madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland ayaa muddo toddobaadyo ku sugan Kenya wuxuuna raadinayaa inuu tago degmooyinka Ceelwaaq, Luuq Doolow, balse waa arrin aad u adag sida ay noo sheegeen odayaasha dhaqanka. dowladda Soomaaliya ayaa ku guuleysatay iyadoo gacan ka helaysa Itoobiya in la soo wareegto inta badan ciidamadii Jubbaland ee gobolka Gado, taasi oo caqabad ku noqotay maamulka Jubbaland oo hadda u muuqdo inuu lumiyay gobolka Gado. Sheekh Maxamed Cabdi Umul ayaa ka jawaabay eedeyntii uu jeediyay afhayeenka golaha culimada Soomaaliyeed Sheekh Cabdulqaadir Sheekh Maxamed Sheekh Somo oo ahayd inuu sabab u yahay masiibada ka jirta dalka isla markaana dartiis ay dad badan ugu jiraan qabri. Sheekh Umul oo wareysi gaar ah siiyay BBC-da ayaa dhammaan iska fogeeyay eedeymaha loo soo jeediyay, wuxuuna sheegay in dadka kaliya ee la dagaalamay kooxda Al-Shabaab ay ahaayeen iyaga bilowgii ilaa dhamaadkii sidoo hadalka u dhigay. sidoo kale wuxuu tilmaamay inuusan ogeyn wax dooda oo ka taagan muxaadarada uu iclaamiyay saaka oo Jimcaha kana dhacaysa garoonka Injineer Yariiso ee magaalada Muqdisho. ugu dambeyn waxa uu waxba kama jiraan ku tilmaamay Sheekh Umul eedeymaha la xiriira in hadal uu horey u jeediyay lagu laayay dad badan gaar ahaan suufiyada. aniga ma ogi fadwatay ah oo suufiya lagu laayay, wuxuu u baahan yahay inuu keeno Sheekh Somo meeshaan aniga ku iri suufiyada halalaayo ama dariiqooyinka halalaayo. markaana gobolka Baay, maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa cafis u fidiyay gebi ahaanba maxaabiistii ku xirneyd degmada Diinsoor dhawaana laga saaray gudoomiyihii dilaaga ahaa ee degmadaas. maxaabiistan la cafiyay ayaa tiraan gaarayay ilaa 10 maxbuus waxaana iskugu jiraan askar iyo dad shacab ah. maxaabiistan la cafiyay waxaa booqday wasiirka wasaaradda cadaaladda maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. qofka eedaysanay inuu samide dadka dhawi qof madaxdiisa ay tahay sarkaal taliyan hay isu toore ka dhawi qof kale oo soo ka eedaysanay in maamulkii hore uu mucaaraday saas la kiri iyo qof kale oo soo hajibi tukaan hajabsaday daban maxaabiista sayma la skirinayti meena hanin batay in dadka qaar kiisas fudud kirinayeen oo dad wada hadal siileel waysanay dadkiyo haysadii ma ahane daban mar hore bal isku cafi markii uu wada hadalnay meena batay in oo lankii toorada dadka dhawi oo muddo hirinay tumii ko bilood hirinay la kulansiina lankii toorada ka dhawi oo sarkaal sheehay
waana nin cadday inuu sacafi daawadayaal waa naga intaa warkii aad kala socoteen xogta TV haddii aad nagu cusub tahay fadlan daawada subscribe channelkan si aad u hesho wax kasta oo aan channelkan soo gelino